kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda Ruushka oo sheegtay inay furayso wadooyin muhiim ah haddaba wadooyinkaasi goobaha ay dhacaan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada warkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah Putin oo gudoomin doona shirka golaha amniga Russia waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu soo qaadayo waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale warka waxaa ku jira askar Russian ah oo dhibaato xoogan ay soo wajahday sidoo kale daawadayaal qodobada aan idiin hayno waxaa qayb ka ah ciidamada Ruushka oo burburiyay goobo ay leeyihiin militariga dalka Ukraine gaashaanbuurta neetana waxa ay ka dhawaajisay arrin xasaasi ah haddaba arrintaasi waxa ay tahay warkaan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Jarmalka oo lagu dhaliilay diyaaradaha ay ku taageerayso Ukraine qodobadaasi qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay furayso wadooyin muhiim ah xukuumadda Ruushka ayaa maanta oo Isniina sheegtay inay furayso wadooyin bini'aadanimo oo cusub kuwaas oo isku xiraya magaalooyin badan oo ay ku jirto caasimadda Kiev ee Ukraine si loogu ogolaado dadka rayidka ah in magaalooyinkaasi ay isaga baxaan madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku eedeeyay Ruushka inay dileen dad rayid ah kadib markii uu Ruushka weeraray magaalada lagu magacaabo Irpin oo uu ku dilay sida la sheegay qoys dhalinyaro ahi saraakiisha difaaca dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay dib u qabsadeen bariga magaalada lagu magacaabo Lviv waxaa dib u soo cusboonaaday duqeymaha Ruushka uu ku hayo magaalada dekedda leh ee lagu magacaabo Mykolaiv UK ayaa sheegtay in Ukraine ay sii doonto 100 milyan oo dheeraad ah si ay uga caawiso in dowladdaasi ay sii shaqeyso inta uu socdo duulaanka Ruushka qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay heerkii ugu sarreeyay tan iyo sanadii 2008 kadib markii uu Mareykanka sheegay in ay ka arrinsanayaan sidii cunaqabateyn cusub loo saari lahaa saadka Ruushka iyo waliba xulafadiisa waxaana xilligan wararka kala duwan ee ugu dambeeyay ee soo baxay ay sheegayaan in xukuumadda Moscow ay shaaca ka qaaday inay furayso wadooyinkaasi oo xaalada bini'aadanimo dartood ay xilligan arrintaasi u sameynayso kuwaasi oo isku xira magaalooyin badan oo qayb ay ka tahay caasimadda waddanka Ukraine ee Kiev si markaasi loogu ogolaado dadka rayidka ah in magaalooyinkaasi ay ka baxaan waxaana dowladda waddanka Ukraine xilligan ay ku eedeynaysaa Ruushka in ay beegsanayaan oo ay laynayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan dalkaasi kadib markii Ruushka uu weerar kala duwan uu ku qaaday qaybo badan oo ka mid ah magaalooyin dhaca dalkaasi Ukraine kuwaasi oo ay ku noolaayeen dad rayid ah saraakiisha difaaca Ukraine waxa ay sheegeen in ciidamadooda ay dib u qabsanayaan magaalooyin dhowr ah kuwaasi oo kol hore ay la wareegeen ciidamada Ruushka oo weerarka ku qaaday waddanka Ukraine dhanka kalena Putin ayaa gudoomin doona shirka golaha amniga Russia madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa la filayaa inuu kulan qaas ah ula yeesho xubnaha joogtada ah ee golahaasi afhayeenka madaxtooyada Kremlin-ka ee Russia Dmitry Peskov ayaa sheegay in kulankaasi lagu lafaguri doono xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka ka soconaya Ukraine iyo khasaarihii soo gaaray militariga Russia wasaaradda difaaca Ruushka waxa ay sheegtay in khasaaraha soo gaaray askarta Russian-ka uu gaarayo 498 qofood oo dhimasho ah iyo waliba 1597 askari oo dhaawac ah waxaana khasaaraha mid ka badan kala hor sheegtay dowladda Ukraine oo tilmaamtay in ka badan 11,000 oo askarta Russian-ka ah ay kaga dileen duulaanka ama weerarka ay ku qaadeen gudaha dalkaasi Ukraine waxaana warkaasi haatan gaashaanka u dururtay wasaaradda difaaca Russia oo shalay shaaca ka qaaday in khasaaraha soo gaaray askarta Russian-ka ah tan iyo markii ay weerarka ay ku qaadeen dalka Ukraine uu gaarayo 498 askar oo ku geeriyootay dagaalkaasi waliba 1597 askari oo ku dhaawacantay ilaa haatan ma jiro war madax bannaan oo xaqiijin kara marka la fiiriyo khasaaraha rasmiga ah ee ciidamada Russian-ka ah ku gaaray dagaalka ay ku qaadeen gudaha dalkaasi iyadoona dhanka kale marka aan fiirino askar Russian la tilmaamayo in dhibaatooyin xoogan xilligan ay soo wajaheen askartan Russian-ka ayaa la tilmaamaya in dhismo dheer oo wiish ah ay raaceen si ay dhismahaasi korkiisa difaac ay uga galaan goobtaas oo dhan ay ugu waardiyeystaan laakiin ciidamada Ukraine meesha ayaa la tilmaamay inay ku jireen iyagoona korontada ka jartay wiishkii ay raaceen iyagoo ku dhex jira ciidamadaasi
waxaana xilligan la tilmaamaya in dhibaatooyin xoogan ay wajahayaan askartii raacda weyshkaasi si markaasi ay dhismaha korarkiisa ay difaaca kaga galaan. dhinaca kalena ciidamada Ruushka waxa ay burburiyeen goobo ay leeyihiin militariga Ukraine. ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa burburiyay 2119 bartilmaameed oo ka mid ah kaabayaasha militariga Ukraine intii lagu jiray duqeynta Ruushka. afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sidaasi Sabtidii sheegay. guud ahaan 2119 bartilmaameed oo ka mid ah kaabayaasha militariga Ukraine ayaa la garaacay intii uu socday howlgalka, ayuu yiri. waxaa ka mid ah 74 xarumaha taliska iyo weliba goobaha isgaarsiinta ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine. waxaa la burburiyay 108 gantaalada difaaca hawada ee loo yaqaano S-300 iyo qaar kale oo fara badan. dhanka kale 68 saldhigyada raadeerka ayuu ku yiri hadal kooban uu soo sheegay in markaasi ay bartilmaameedsadeen. waxa uu sidoo kale afhayeenku intaasi ku daray in 69 diyaaradood oo dhulka fadhiyay iyo weliba 21 kale oo hawada sare ah in la burburiyay. 748 taangi iyo weliba baabuurta gaashaaman ee kale sidoo kale in la burburiyay. 76 gantaalada, 274 xabo oo madaafiic iyo weliba hoobiyaal gaaraya markaasi in ay xilligan ay burburiyeen. 532 gawaarida dagaalka ah ee gaarka ah iyo weliba 59 diyaaradood aan duuliyaha lahayn sida uu tilmaamay. dhanka kalena gaashaanbuurta NATO waxa ay ka dhawaajisay arrin xasaasi ah. NATO cadaawad uma qabto dadka Ruushka, mana dafirayso maqaamka Ruushka ee quwadda adduunka. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ku sheegay maqaal uu daabacay wargeyska ka soo baxa Mareykanka ee The New York Times Axadii. ma jirto wax cadaawad ah oo aan u qabno dadka Ruushka u dhashay, mana lihin wax rabitaan ah oo aan ku canaananayno qaran weyn iyo weliba quwad caalami ah, ayuu yiri, isaga oo markaasi tilmaamaya Ukraine rajo weyn kama qabin xubinnimada NATO mustaqbalka dhow. tani ma ahan iskahorimaad NATO, mana noqon doonto midaasi. ma jiro xulafo u diray ciidamada dagaalka Ukraine, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha UK. waxaana Britain la xasuustaa in garab istaag weyn ay u muujisay xukuumadda Kiev iyadoo ka soo horjeestay marka la fiiriyo dowladda waddanka Ruushka oo ciidamadooda duulaan cad ay ku qaadeen dalkaasi Ukraine. dhanka kalena Jarmalka ayaa lagu dhaliilay diyaaradaha ay ku taageerayso Ukraine. saxaafadda afka dheer ee Jarmalka ee Bild lagu magacaabo ayaa sheegtay in gantaalaha lidka diyaaradaha ee Jarmalka uu ku taageerayo Ukraine ay yihiin intooda badan gantaalo duugoobay oo mirirsaday. gantaaladan ayaa ah kuwii ay lahaayeen ciidamadii Jarmalka beri ka hor inta aan la dumin derbigii Berlin muddo 35 sano ahi, ayayna ku keedsanaayeen meel tayadooda liidato sida ay tilmaameen. saxaafadda ayaa sheegtay in arrintani ceeb ay ku tahay dowladda Jarmalka ayaa dhawaan waxa uu sheegay in diyaarado dagaal ay siinayaan marka la fiiriyo dowladda waddanka Ukraine si ay isaga caabiyaan ciidamada Ruushka oo dagaalka ku qaaday dalkooda. guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku soo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. tani kula tadambana nabadgelyo.